الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وحوقا كوبا بين كورن دونا كيفية استقبال رمضان أما بشان رمضان يقفك مسلم كاسيد اللوغة باهيين وديار قروبه حين كترنا شعبان أيام كدبنا إن شاء الله تعالى رمضان بين قارنا. رمضان وبال الصوم وبالقيام الليل لوكعه وبالنصوص تكسر ارتال عتق من النار إن شهادة لها لقفك إن نارت إلهي كحريي وإن شركيس النار تابا دونين وبال داغ قفك مسلم كو برطية وحبحنته وبالقفك استو مسلمي المصالحة مع الله أو الرجوع إلى الله وربي يقول نقض سبحانه وتعالى وبالنبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سدادتك اللو ترغيبين يلو على سينيا الله سبحانه وتعالى إن البابد الجنة الله فره البابد النار تنال حده وحيابها دتك عرقلة دي جنة اسكهر تاقه أما النار تكدر قيا كتخن تخينا وابالستي الشياطين تواوين وقوين يغنا إن لحده وبالروح لقفك مؤمن كاي طاهر نقطه آثارتي يذنوبتي والسيدية ما حنبار سنايا سنة كردنك سوداعي سينا ربي كدتشيو إذا وحي سويدين تلي مركاسين وقود ديار قروبينا حالينا قربا انت وقود بادان دادكو قولنا ديما بأوغا الله هانونيه انت وقنا waxaa laga yaabaa inuu diyaar garowgoodu noqdo guriga raashin fiican in la dhigo, shaqada inuu iska yareeyo, hurdada iyo cunadaba inuu badsado oo waqtiga cunadu baynu beddelaa oo halkii maalintii wax laga cuni jiray un baynu u raraynayno maxay habeenkii cunno. markaad eegto guriga cunada la dhigo bisha kale iyo bisha ramadaan cunada la dhigo marar badan waxaa badan maxay ramadaantii cunada aynu qaadano. al-asluna maaha cunno inaynu diyaar garowno, waayo maanta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisan yihiinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro oo ah in caloosha la nasiyo oo cunadu markay yaraato waxay dhahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumuumtii jidhkaaga ku jirta inuu safayn karo. waxaa cunadu markay yaraato uu jidhku helayaa bay yidhaahdaan renewal, old cellskoo dham inay dhintaan jidhka bay yidhaahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay wuu dilaa, unugya cusub baa dhasha, markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaadaa. walidaalik baa maanta miisaankaa dhinma kanbaa dhaca xanuuno badan bay ku daweeyaan ilaa ay xanuuno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 36 maalmood ama wax ku dhow la soomiyo iktiaabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo. maanta dad badani waxay u soomaan inay jidh qurux badan yeeshaan, dadka qaar waxay u soomaan in wasniga iyo miisaanka iska yareeyaan, dadka qaarkood waxay u soomaan lilidiraab, dowladda iyo wixii laga cabanayay in xabsiyada iyo meelahaas oo kale in cunada laga soomo idiraab iyadoo ah. laakiin waxaynu isweydiinaynaa qofka muslimka ahi maxaa asale uu soomaa? waxani waa tabac, yani inaad caafimaad hesho ama inaad kan heshaa maaha asalkii soonka. asalka soonku waa maxay? yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaah yidhi. kuwa iimaanka laga helayow soom baa laydinku waajib yeelay sidii ummadihii idinka horreeyayba loogu waajib yeelay
cibaadaadka qaarkood waa qadiim mundu qidami zamaan intii umamku cibaadaad la wada faray baa jira hayaakil alcibaada wa kayfiyatiha baa kala gedisnaatay مثلا صلاة وعبادة قديمة صومك وعبادة قديمة حجك وعبادة قديمة والغا يا بقاب كلو غدن يا من لو سمينين كلا قديسين يهين نبي كستا تشريعي لسوسي انه كقديسين لكن اصول العباده اركان الاسلام كلا يداين طبضا وعبادات قديمه وقران كوينات الماميه صومك الهي وحينا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صوم بليدن واجب يالي sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horeeyay maxaa laynoogu waajib yeelay ma ciqaaba oo inta layna ciqaabaaba dembiga laynaga maydhaya maya ilaahay aayadka dambe wuxuu leeyahay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla rabaa inuu noloshaba idin fudaydiyo soonkaba waxaa la idin faray in noloshu idin fududaata baa la leeyahay culaysna rabbi idin lama rabo idan soomka culays kuma jiro haddii sidii sharcigu uu sheegay loo samaynayo waxaa ilaahay ina farayaa sababtu waa maxay lacalakum tattaquun ina mansilatu taqwa gaadhaan aslu lcibaadaba mansilatu taqwa bay ku gaadhsiisaa yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaahay yidhi wardadow rabbigiin caabuda idinka idin abuuray iyo kuwii idinka horeeyayba maxaa u caabudaysaa lacalakum tattaquun kayta tattaquun haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanay ramadaan in loo diyaar garoobo munaafiqiintii ka hadhay dagaalka ee dabeetana cudurdaarka nebiga ula yimi dagaal maxaa la yidhaha tabuuk markii loo baxayey tabuuk waa dowlad weyn baa dagaal lagala hortegayay oo dowladdii romanska iyo dadkii raacsanaaya waktiguna wakti kulul buu ahaa oo waktigan khaliijka 40 iyo 50 ka dhacaan yani wakti samara xagaaya bay ahayd dabeetana bil wakti ku dhadhowna waa la lugeynaya xagaaga marka ragii daacadda ay ka ahaydna way u diyaar garoobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bisha siduu socon lahaa kuwii waxay fuulaan waayeen mu'miniinta ahaa waa kuwii nabiga u yimi iyagoo ooyo la ilaahay rasuulkiisa iyo wax nasaar ma haysano geel iyo farda iyo waxaanu fuulo toona ma haysano inaanu kaa hadhnana ma rabna waa kula dagaalgalaynaa ee waxaanu raacna nasaar qolaa jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay xagga kale marka laga eegana waa waqtiga timirtu bislaato oo beerahay lahaayeen carabtu waqtigaasay u bislaataa marka nimankii munaafiqiinta iyagu marmarsiiyay sameeyana way hadheen ilaahay oo qadiyadooda ka warramayaba wuxuu yidhi walow araadu lkhuruuja laa cadduu lahu cudda baa ilahay yidhi hadday marka horeba iraada doonitaan hadduu jiray inay rabaan inay baxaan way u diyaar garoobi lahaayeen baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ee diyaar la-aantu waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin maxay inay baxaan haddaba soomku ayuha alaxiba wuxuu inaga rabaa diyaargarow wuxuu inaga rabaa diyaargarow ah inaynu u diyaargarowno mansiladii loogu talagalay qofka mu'minka ah soonku inay gaadhsiiso inayna gaadhsiiso sida awgeed ayaa salafi lumma markay ramadaantu soo dhawaato waa ku farxi jireen dee saan ugu farxinba qofka muslimka ahay rukun arkaantiisii diinta abaa kusoo socdee soomay rumaysnin islaamkuba inuu 5 rukun ku tiirsan yahay 5 asaloo waaweyn buu leeyahay 5ta asal maxaa ka mid ahaa shahaadada iyo salaad iyo zako iyo soon iyo xaj idan rukun ka mid ah arkaanul islaamkii markuu soo socdo qofka mu'minkii wuu diyaar garoobaya nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuu ugu bishaareyn jiray xadiidka saxiixi sunan النسائي ku yaalla wuxuu nabigu leeyahay ataakum ramadaan shahr mubaarak farada allahu caza wajalla calaykum siyaama tuftaxu fiihi abwaabu الsamaa وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم نبي الصحابة الله الله رضوان الله عليهم أي نبي صلوات الله وسلامه وحليه ورياده رمضان بايدين تيمو نبي لي وبالبركة سنة
ramadaan waa barakaysantahy dhammaanteed ilaahay wuxuu idinku waajib yeelay buu nebigu leeyahay soon albaabada samada ama albaabada jannada waa la furaa abwaabu samaa waa la furaa acmaashiina la aqbalaya abwaabuljanna waa la furaa iyadoo laydinku dhiiri gelinayo abwaabta jaxiimana ama jahannamana waa la xidhaa shaydaamada waaweyn ee idinkiin fogeynayo dhanna waa idinka qabanayaa bishaas baa la yidhi shayaadiintu waa ijaaza compulsory leave baa la siiyaa kuwa waaweyn oo dhan waa xidhan yihiin bisha tan iyana habeen baana ku jira buu nebigu yidhi 1000 bilood ka khayr badan 1000 bilood cibaadadood waa intee oo 280 sannadood habeen ka khayr badan baa jira oo bishan ka mid ah man xurim qofka laga manciyey heli waaye khayrkeeda ramadaanta ama habeenka khayrkeeda qofka waaya faqad xurim kaasi khayr heli maaya baa la yidhi haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa bushaaraynaya saxaabadii buu bushaaraynaya waxaan ugu bushaaraynayaa waqti aan waqtiyada la mid ahayn inuu soo socdo nimanka dujaarta ah ee seasonalka wax iibiya waqti kasta qalabkiisa iibiyaan maalan markay ciidda rabaan inay wax iibiyaan ciid gaaleed ama ciid muslim ha noqotee ciidda waxa soconaya oo dhan bay soo diyaariyaan waxaan u arkaa waqti yar oo aan badnayn oo aada loo faa'iidi karaa inuu jiro faa'iidooyin badan la helayo qofka muslimka iyo marka bisha tani waa bil aada u khayr badan waa bilu qofka muslimkii maca allahi jumla uu kula baac mushraynayo waa bil aad dhalin karto dee 280 sannadood baad habeen dhalin kartaa 280 sannadood cimriga wixii aad cibaado samayn kari lahayd ayaa habeen ka mid ah ramadaanta aad samayn karaysaa idan waa bil aan waqtiga intiisa kale kuula mid ahayn saa daraaddeed qofka muslimkii wuu diyaar garoobaya bishan weynadeeda waxaa kuu tilmaamaya laba nin oo saxaabada ka mid ah ayaa soo hijrooday dabeetana طلحة بن عبيد الله وصحابي اللي ورن شري بي لدقه لبضا نين way jihaad galeen markii ay jihaad galeen ayaa midi shahiidnimo qaatay midkii kale waa laba nin oo soo islaamo islaamnimadoodu fiicnaatay oo nabiga la dagaalgalay mid baa dagaaladii shahiidku noqday kii kalena sanad kaluu sii noolaaday bishii ku xigtay ramadaanna waa joogo waa dabeetana si caadi u geeriyooday طلحة بن عبيد الله صحابي اللي ورنشري أيها وحي الريان أركي الرياد السديدة قد تكون حقا وقد تكون خزعبلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقوت المامية النبدي وحكا هاري وحكا ميدا محي الرؤية صالحة مركا الرياض ردبنا والنقطة باطل يوسكا ردبنا والنقطة صحابي نقول الرياضي wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii ay gelayaan dabeetana saddexda yadaanu ahayn buu leeyahay aniga iyo labadii nina kale kii dambeed dhintay ee aan jihaadka ku dhimanin ayaa la yidhi soo gal kii baa la horreysiiyo horgalay dabeetana kii shahiidka ahaa baa ka dabagalay anaa isidhi galo adiga weli may gaadhin wakhtigaagii baa la yidhi buu yidhi markaa wuu soo baraarugay riyadii baa faaftay nebigaa loo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maxaa ula yaabaysaan waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyow labada ninkii aanu islahayn dee waa dadaal badan yee shahiidoobay kii kala jannada ka horgalay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi alaysa qad makatha hada bacdahu bisana oo kan miyaanu sanad ka nolol dambayn buu nebigu ku yidhi markaasaa la yidhi haa waa ka nolol dambeeyey oo miyaanu ramadaantii dambe isagu soo gaadhin buu nebigu ku yidhi haye waa soo gaadhay baa la yidhi oo sooma soomin oo ma salaadin oo masaajidkan kuma tukanaynin sanad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi haa famaa baynahumaa abcadu mima bayna alsamaa'i waalardi buu nebigu ku yidhi xadiidka kan ibnu maaja soo warinaya culimaduna saxiixa ku tilmaamayaan wuxuu nebigu leeyahay labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa
cirkiya dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa yacni ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu nooloo ay ka mid ahayd uu nebigu leeyahy war ninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nebigu leeyahy oo ramadaan taa ma tukanayn ma soomayn waa kan sida awgeed axaadiis badan baynu nebiga ka haynaa uu nebigu leeyahy qofka ramadaan soma iimaanan waxtisaaban isagoo iimaan iyo ixtisaab yacni mu'minan billaahi si dhaba u rumaysan wa mukhlisan ku dhinta camalkaa soonkaa sameeya gufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisi horaa la dhaafaa buu nebigu yihi waa ninka sooma waman qaama ramadaan buu nebigu yihi ninka habeenka ramadaan istaagana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi haddana nebigu wuxuu yihi waman qaama leylata alqadr habeenkaa gaarkaa ninka isa sii taaga iimaanan waxtisaabanna isna dembigiisi hore waa la dhaafaa taa macnaheedu waxa weeyaan ayuha alaxiba ramadaan waa fursa waa tijaara raabixa bilaa shak waa tijaara ilaahay lala baaca mushtaraynayo oo maxaa lagula baaca mushtaraynaya ilaahay biliimaani walacmaali saalixa iimaan iyo camal suuban waa fursad qof kasta oo muslim oo dembi ku raraa uu dembiga iska rogi karo waa misfaa yacni waa xamaamu ruuxiya waa meel lagu qubaysto lagaga qubaysto wixii dembi ku soo galay imise ishaadu wax xun aragtay imise dhegtaadu wax xun maqashay imise carabkaagu wax xun ku hadlay imise xisaabi uun waxaasoo dhan qaabkii la ysaga maydhi lahaa weeyaan sida awgeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin buu mimbarka fuulay isagoo leh aamiin 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 saxaabadii waxay dhahen maa kunta tasnacu haada ilaahay rasuulkiisiiyo saan maad yeeli jirine maanta maxaa soo kordhay mimbarka markaad fuulayso si caadi umaad u fuuli jirtay laakiin intaad xabad fuushay inaad aamiin tidhaahdo takala fu aamiin oo aamiin tidhaahdo maxaa isbedelay bay nebiga weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi jibriil baa ducaynayay ama saan idhaahna habaartamayay aniguna aamiintaan u lahaa buu nebigu leeyahy nebi maxamed iyo jibriil maxay isugu tageen ee midna uu ducaynaya midna aamiin u leeyahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu yidhi ragima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaanu falam yugfar lah ragima anf waa erey carabta ku isticmaasho sankiisaa boodhoobaya ala soomaalida ku tara afka u dhac afka ha u dhaca buu leeyahay ninkay ramadaan u soo gashay ee haddana dembigiisa la dhaafi waaye afka ha u dhaca buu jibriil leeyahy carabtu waa sanka ha u dhace markaasuu nebi maxamedna leeyahay aamiin jibriil baa haddana wuxuu yidhi afka ha u dhaco ninka maxay agtiisa laygu sheego nebi maxamed oo agtaada inta lagu sheego calayhi salaatu wasalaam kugu saliyi waaya nebiga ku saliya dabeetana nebigu aamiin buu ku yidhi markaasuu haddana wuxuu leeyay ragima anfa cabdin adraka waalidayhi aw axadahuma afka ha u dhaco qofka labadiisii waalid soo gaadhay ama mid iyagoo yacni gaboobay falam yudkhil iljanna oo janno ku geli waayey labadiisii waalid samafalka iyo axsaanku uu samaynayo kaasina afka ha u dhaco xadiidkani wuxuu tilmaamayaa 3 camal oo janno lagu galo midi waa waalidka iyo ixsaanfalkooda midna waa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka kalena waa ramadaan nimay u soo gashay oo haddana dembigiisa la dhaafi waaye yani 3 qof la habaarayo mid waa ninkii nebi maxamed ku salli waayey midna waa ninkii waalidkii u samafali waayey ka saddexaad waa maxay qof ramadaanna ay u soo gashay ramadaanna ka dhamaatay isagoo aan weli dembigiisa la dhaafin yani ma istafaada min ramadaani shay-a ramadaan aan waxba ka faa'iidin yani ninka ramadaan wax ka faa'iidi waayey man xurima khayruha faqad xurim buu nebigu leeyahy leylat lqadr iyo wixii ninka taa khayrkeeda laga xaaraam yeelay khayrkeedu uu waayey
kaasi khayr heli maaya buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. sida awgeed ayuha alxiba markaa waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inuu ramadaanta u diyaar garowno oo ugu diyaar garowno sidii kow ilaahay dembigaaga u dhaafi lahaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadiidka muslim ku yaalla الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حديث كان يقول هي صلاتها شنطة هي جمعة إلا جمعة هي رمضان إلى رمضان مدوى لبا وحيد هي مكفرات لما بينهن لبدا دحدو دوحي أهم الدم بقوضة لقرافه إذا اجتنبت الكبائر هدي الدنبية دواوين لقفوق هذا يعني واحد شيره هرت الصغائر تو ذنوب تو بدن وهي مرر بدن وحلقة يا وقفكو هدو قف نول بي هيدي إنه كبيرة وكل حسوسته إلى وطابط كانوا صغائر لكن دتكو اسكوضها صغائر تو اسكسعطاهم markaad masaajidka ka baxdo imisaad naag qaawan aragtaa, imisaad wax kaa mamnuuca maqashaa, imisaad tv aragtaa, imisaad wuxuun ku hadashaa, imisaad halkeer fadhi ku dirarka tagtaa oo ama adigu aad wadaa ama iyagu ay wadaano aadna dhegaysanaysaa ila wasla maashuune. yani haddii saqaayir la ururinayo waa haddaynu kabaa'irta kaba indhaqarsanno waa rarannay. waagu markuu bariyey ilaa iyo gabalku intuu ka dhacayay intaad ka seexanaysay dee intaa ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay intee khayr ahayd uun xisaabi. saaka markaad soo kacday ilaa iyo caawa intaad seexanayso ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay mid hadlaya intee baa khayr ahayd uun isweydii markaa. yani waxaynu garan karnaa saqaa'irta maalin walba ina fuulaysa intay taagantay dhowr shay oo saqaa'irta lagu maydhaa baa laynoo sheegay. waxaa la yidhi salaad ilaa salaadi way maydhaa. salaada aad jamaca la tukato ninkii yidhi gabadh baa nukaday ee nebigu ku celceliyey muxuu nebigu ku yidhi war miyaad nala joogin markaanu salaada tukanaynay me waa idinla tukaday buu ku yidhi ina alxasanaat yudhibna sayi'aat buu nebigu ku yidhi. yacni salaad ilaa salaad haddaad salaadaha jamaca ilaaliso saqaa'irta u dhaxaysa way tirtirtaa. jimce ilaa jimce ramadaan ilaa ramadaan waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo haddii salaadan ilaa salaadan shantii salaadood maanta hadday tirtireen jimce ilaa jimca maxaa la tirtirayaa ilan maalin kasta shan baad soo tukatay. haddii jimce ilaa jimca uu tirtiray maxaa ramadaan ilaa ramadaanta la tirtirayaa. acmaashu kuwa saalixa ah أعماشا صالحات كا يا أعماشا مذموم كايبا آثار تدوحة كرلانيا وبحسب عمل العامل وبحسب استيفاء شروط القبول وحياه بدل ما يكون حرمتي تصالح مثلا النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث كحسن كعلماء كتل المامان أبو داود النسائي ابن حباني ركبة يوريني يعني إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته متكين بقى تكاده وأن صلاة دي سلوه قريب النبي يقول طبعا ميلود ميل مو يعني تبتنا النبي يقول سيوضي تصعها ثمنها خمسها سدس سيوضي النبي عليه الصلاة والسلام إلا نصفها وكجارسيني متكين بقى تكادو صلاة دي صلاة طبعا ميلود أو ميلهان 10% mid kale tukado salaadii salaam maxay 10 meelood marka loo qaybiyo yani tusc mid baa le thumun 1/8 mid baa le maxay sudus 1/6 mid baa le khums 1/5 mid baa le baa la yidhi rubuc quarter mid baa thuluth leh 1/3 ayuu salaadiisa leeyahay mid baa nisf leh nus oo waa maxay dee salaada waxaad leedahay intaad ikhlaas tahay soo jeedo
haddaa qalbigaaguba maqan yahay iska lahayd waday iyo ninkii salaadiisa xaadirka ahaayee wuxuu akrinaya garanaya u fiirsanaya soo jeeday dee isku ajar maaha labaduba salaad bay tukadeen laakiin salaadoodu waa maxay isku ajar maaha walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam ama qur-aankaba ilaahay wuxuu leeyahy waaqimi الصalaata طarafiya الnahaari wazulfa min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat dalika dikra lidakiriin baa ilaahay yidhi salaada oog labada dacal ee maalintii iyo habeenkii wax ka mid a ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat wanaagyadu ama xasanaadku waxay tirtiraan buu nebigu ayuu qur-aanku leeyahay sayi-aadka dalika dikra lidakiriin laakiin salaadaha iyo cibaadaadka iyo soonka iyo waxaynu samaynaynaa waxay ku xidhan yihiin wakhtiga la sameeyo kow oo awqaad waa kala fadli badantay makaankaa kala fadli badan meesha lagu sameeyo maalan salaadaad kacbada ku tukato iyo taad gurigaaga ku tukato hadday isuma dhowa ama masaajidkii nebi maxamed salaadaad ku tukato iyo taad meel kale ku tukataa dee isuma dhowa 1000 salaadood iyo 100 salaadood baa udhaxaysa waxaa la mid ah waqtiga salaada waqtigu markay soo gashay jamaca ilaalisay tukatay dad hadhow tukatay dee isku mid maaha salaada jamaca ku tukatay taad munfaridka tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah xuduur alqalb sidaad xaadirka u ahayd salaadaad adoo maqan tukato ghaafila iyo adigoo mutayaqido xaadira salaadaad tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah ikhlaaska مثلا nabigu calayhi الsalaatu wasalaam axaadiista wuxuu tilmaamayay mid aakhiro dunuub badan inta loo qabsado la leeyahay wax camala ma garanaysaa oo marka dambe le ilaah waan wax camala oo kaloo dheeraad oo sameeye garan maayo khayra oo bataaqa la keenayo bataaqada maxaa ugu qoran tawxiid laa ilaaha ila allah diisi baa ku qoran muxamedun rasuulullah laakiin waa laa ilaaha ila allah mukhlisan min qalbi waa laa ilaaha ila allah nooc gaara ah taasaa kafada loo saarayaa dabeetana taasaa ka cuslaanaysa wixii kale oo dhan oo haddaa dadka laa ilaaha illa allah yidhi oo dhammi naarta waxba ka geli maayaan miya maya waa gelayaan qaar badanoo asxaabu laa ilaaha illa allah iyabaa naarta gelaya oo qaar shafeecada nebi maxamed lagaga soo saaraya oo qaar shafeecada malaa'igta lagaga soo saaraya oo akhiiran ilaahay subxaana wa tacaala waxa ku hadh ka soo saaraya dabcan wixii tawxiid ku dhintaa naar ku waari maayaan laakiin geli maayaan lama odhan karo naar ku waari maayaan laakiin qaar baa jira tawxiid intay ku dhintaan aan naartaba gelaynin tawxiidkiisu waxa kaloo dhan uu ka culus yahay waxay leeyihin waa acmaali lquluub baa kala cuslaysa waxa kan walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa salaadaheenu inaanay sinnayn wuxuu kaloo tilmaamayaa man iqtasala yowma aljumca walabisa min axsani hiyaabi wamasa min tiibin in kaana cindah uma ata aljumca ninka maydha maalinta jumce ee dharka waxa u fiicana uu haysto soo xidha ila waa maalin ciideed jimcaha muslimku yahay ee dabeetana udug haddii uu haysto soo marsada ee dabeetana jimcaha yimaada ee aan dadka ka dul taltallaabsanin buu nebigu yidhi falam yatakhata acnaaqa annaas dadka aan jiidhjiidhin ee halkii ugu bannaanee uu helo fadhiista oo tukada wixii alla u qoray inuu tukado dabeetana marka imaamku yimaado aamusa oo dhegaysta kaanat kafaaratan lima baynaha wa bayna jumcatihi alatii qablaha buu nebigu yidhi tani waxay kafaaro u tahay jumcadan iyo jumcadii ka horreysay wixii u dhexeeyey idan jumcada waynu wada nimi laakiin isku mid maaha jumcadeennu mid baa goor hore yimi oo la mida buu nebigu yidhi sidii nin neefgeela sadaqadaystay ka ku xiga saacadda ka dambaysta baa nin neef saca sadaqadaystay neef lo ah ka ku xiga neef adhiya ka ku xiga digaagad ka ku